dhammaan reer ceeldibir waxaa aad iyo aad ugu mahadsantihiin soo dhoweynta aad nagu soo dhoweyseen magaalada ceeldibir aad iyo aad baanu idinka mahadnaqaynaa booqashadan aanu idinku nimi waxaannu doonaynay inaannu idinku wargelinno shirkii uga socday beesha axmed faarax magaalada huluul waxaa laysku raacay oo go'aankii majooratigu noqday axmed faarax biciide inay doortaan oo codkooda siiyaan musharaxa ka sharaxan xisbiga ucid jaamac axmed oogle caanaboodhe oo astaantiisuna tahay dawaco waa musharaxaa garanaysaan haddaannu nahay dhaqankii beesha sidaasaannu isku raacnay waxaana calaamadaa u arki doontaan waa kuwa cuqaashii beesha axmed faarax oo dhan sidaasaannu doonaynaa inaannu idin warkiidii ku soo gaadhsiinno go'aankii shirkooda sidaasuu noqday axmed faarax biciide musharaxa ay leeyihiin ay soo saarayaan waa jaamac axmed oogle maalinta 31 bisha macnaha maamulkan ceeldibir deegaankeeda aad iyo aad baan idinka mahad celinaynaa waxaana idinku salaamaynaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu alxamdulilah warka dee kolley waxaan ku yidhi haddiina hadal laga tashaday ninma odhan waayaa la yidhi annagu haddaanannu hadlin iyo haddii kaleba wax naloo ku soo daray inaannu degaamada gaadhsiinno iyo goobaha gaadhsiinno oo naloo ku soo daray inaannu macnaha ninkaa la isla qaatay waayo musharax hore oo aannu la soconnin aan lama hayn wacyigelin horena idinma iman annagu markaa wada jidhkaa waxaannu idinku soo raacnay ninkaa la isla qaatay inaannu macnaha degaanka gaadhsiinno iyo goobaha oo aannu idin tusno inaannu ka midaysannahay go'aanka laga gaadhay in la isku raacay murashaxa golaha wakiilada axmed jaamac oogle caanaboodhe runtii waxaan aaminsanahay inuu yahay nin deegaanka iyo dalka wax ka beddeli kara oo maxay ahaatee karti u leh aqoonna u leh waayo aragnimona u leh ku dhex nool dadka inuu yahay oo wax ka beddeli karo deegaanka ayaan runtii aad iyo aad u aaminsanahay axmed faarax haddaynu nahay dee waqtigii hore golaha wakiilada waynu ogeen waynu ka hadhnay dee tareenka siyaasadda ee golaha wakiilada maanta waxaan leeyahay tareenka ayaynaan ka dhicina aan maxay tahay codkeenna midayno haddaynu codkeenna jajabinno oo codkeennu maxay tahay cidlo ku buyobaayaqo waxaa laga yaabaa inaynu maantana tareenkaa ka hadhno dhammaantiin waxaannu idinku wargelinaynaa waxaannu idinku adkaynaynaa waxaannu idinka codsanaynaa waxaannu doonaynaa inaad si midaysan oo mug iyo miisaan le awoodda u saartaan codka oo aad ku midaysaan insha allahu bismillahi alkariim inaad siisaan caanaboodhe annana aannu ka midaysanna aragtaan oo aannu garab taagannahay insha allahu bismillahi alkariim aynu ka guulaysan doonno insha allah bismillaahi raxmaani raxiim waxaannu isku raacsannahay dhammaantayo sida cuqaashu ay sheegtay baannu isku raacsannahay in jaamac axmed oogle caanaboodhe aad siisaan codkiinna annana aannu siinno sidaaduna uu golaha wakiiladeenoo ka mid noqdo ayaannu isku raacsannahay idinna inaad nala qaataan baannu rabnaa dhammaan dadweynaha reer ceeldibir ee marwo iyo mudanayaalba leh waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaan kadib aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa siday noo soo dhoweeyeen iyo xilliga ay qorraxda taagan yihiin aad iyo aad baan u mahadsan yihiin aad iyo aad baan idin ugu mahad celinayaa dhammaantood aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa intaa kadib kolley hadallada muhiimaddoodii waxaa raggii hore cuqaashii hore ayaa sheegtay isku taargaduun baannuna nahay sida cuqaasha hore ay sheegtay annagu waxaa jirtay beesha axmed faarax inay shirtay sidaa cuqaasha horeba ay sheegtay markii ay shireenna waxay go'aansadeen iyagoo isku mida waxay go'aansadeen inay maanta ay doortaan xildhibaanka garabkayga taagan
jaamac axmed oogle oo ka sharaxan xusbiga ucud in si wadara loo doortay oo macnaha sidaas ay xaqiiqo tahay waxaad ka garan kartaan cuqaashi oo iska dhan oo dhammaantood wada socota oo ayna haraba oo arag saas oo ay markii hore dhici jirtay in midba mid iska baxsado maantana alxamdulilah ay tahay in cuqaashi oo dhami ay wada wadaan sidaasaad ka garanaysaan in dhammaan kalsooni iyo isku midnimo lagu doortado sidaa codka loogu hasteeyey taariikhda waa markii koowaad deegaankan dadka ku nool khaasatan beesha axmed faarax iyo habarwadaagtuba la arko xildhibaan ay la socdaan cuqaashii axmed faarax caqil hoosaadadii iyo jiifkii axmed faarax la socdo waana talo lagu gaadhay geedkii huluul muxuu magaciisa ayaxle waxa weeye waa guul wayna muuqataa meesha guusha ku socoto waxa weeye beeshu waxay garatay in badan bay ku soo noqonayeen qolada muxaafidku dawladnimada waxa wax laga helaa imika waxa idinka dhigay bilaa iskuulka iyo bilaa waxbarashada idinka dhigay waxa weeye weligiin xisbi aan dantiina qiimaha saxabka u tumayseen mucaaradnimada dawladda wax laga helaa waar mucaaradnimadaas aad dawladda wax kaga heshaan ugu codeeya jaamaca boore soo maaha waxaana boodhay la socdeen hawsha saas baa lagu soo dhameeyey in ninka caaggeena laga doorto caana boodhay ayaa lagu soo dhameeyey hawshana ay ku dhan tahay intaan waxaan raacinayaa annagu waxaan nahay golaha deegaanka aniga iyo cabdikariin qaalib waxaan leenahay codka hana la siiyo oo weliba anigu reer ceeldibir baan nahay codka waxaan leeyahay halka qudhe aan ku fahmaya waxa weeye waa ceeldibir aan leeyahay codka layga siiyo waxaan leeyahay reer ceeldibirow mucaarad iyo muxaafid mid kastaba ahaado waxaan doonayaa codka in la siiyo aniga الله صلى الله عليه وسلم إلهي بقى مركب ورا مهد له سبحانه وتعالى مركب حاجة دي أضبان يدكم مهد نقيا تدوينها غير عالدبر سيدا ماموس كيا كرامة له نوسو دويي رنتي سيدا يسكف في عنبه وندي كفلين نوسو دويسان أنت كذب صومالد وحكومة مهدا dad aqoon la'aanna waa la qadaa dal aqoon la'aanna waa la lumaa runtii waxaan aad ugu faraxsanahay anigu inaan dalkana aqaan dadkana aqaano idin wada garanayo in badan baynu halka wada joognay muddo hadda aan ka yarayn ilaa 25 sannadood baan deegaankan inuu ka shaqaysanayay odhan maayo waxbaan idiin qabtay dad baynu hayn tolo gacaloo kala shaqaysanaya isuna shaqaynaya bacmisharka iyo dhaqaaluhu waa lafdhabarta bini aadamka soomaalida wax ku mahmahdaa soor baa lagu fadhiyaa sala laguma fadhiyo qofku haddaanu bacmishar lahayn oo dhaqaalo lahayn oo wax soo gelin oo inkamkiisu aanu shaqaynaynin macnihii dee ma noolaanayo ma joogayo marka anugu waxaan odhan karaa waxaan ka mid ahay reer ceeldibirow dadkii ugu badnaa ee waxgashaday ceeldibir ee dhaqaalaha idin keenay waxaan xasuustaa 2016 maraan ka imi dalka Faransiiskan oo aan muddo maqnaan idin imi waxaan magaalada ugu imi meydidii taalay 3 sannadood oo istul fuushay oo loo bixiyay dadkii iibsan jireen nacayna u bixiyeen beey ceeldibir waa garanayaa waxaan garanayaa bil gudaheed 240,000 oo dollar baan ceeldibir soo geliyo meydidii waddanka Taalaan ku iibsaday marka waxaan leeyahay war inagu dee waa horena way isu garanaynaa nin idinka maqnaanaya inaanan ahayna waan ogahay waa ogtihiin inaan idinka maqnaanaynin haddaan maqnaanayo duqurbaa idinkama soo noqdeen aniga bacadkaa idinla jiifsanayey maanta waxaan idinka martay waa codkiinna haddii ay dhacdo codka ay siisaan oo ilaahay geeyo meesha marka koowaad waxaan idinka ballan qaadayaa horta inaanan noqonin weydaan ee aan noqdo nin idinku soo noqdo idinla jooga oo waliba beeyadii sidiisii isaga iibsada marka labaad dhibaatada ugu daran inankeennu awowgeen wuxuu dhintay isagoo la dawladii wax nooma qaban awowgiisii horena sidaasuu dhintay aabaheenna wuxuu dhintay isagoo dawlad ka cabanaya inteennuna maanta dawladdeenu ka wada cabanaya wax le dawlad wax nooma qaban dawladda haddii aan la helin qof u taga oo la xisaabtama oo isku keen xidha
oo waxa idinkaga maqan idiin doona oo waxa tabanaysaan tabadashadiina dawladda gaarsiiya innaguna waxaanu dhimanaynaa inagoo dawladda ka caban oo la dawladda waxna ma qaban waxaan ku soo koobayaa runtii anigu de waa aragtaanoo markhaatiyaan wataa iska socon maayo keligay socon maayo samaacad keliyana ma sito laakiin markhaatiyadii beeshii axmed faarax iyo cuqaasheedii oo dhan baan wataa waxay la socda 5 caaqil oo wakiil caaqil iyo 4 caaqil bay la socda taa macnaheedu waxay tusaysaa inaan dee aan ahay nin iska soconaya aan ahayne nin loo gartay xilka inaan ahay intaa marka halkaa kaga baxo kolley waan ogahay waxa calooshiina ka guuxaya waan ogahay waxba idinka weydiin maayo waayo dee waan idinla joogay waa waxaan bay iga guuxaya waxbarashaan bay idinka guuxaysaa caafimaad darra dhakhtar la'aan bay iyo caafimaad darra idinka maskaxdiina ka guuxaysaa biyo la'aan bay idinka guuxaysaa aasaasigii noloshii asaasiga ahayd oo dhan baa idinka maqan keligiina ma aha waa laynala qabaa deegaanadeenna oo dhan baa inala qabay keligiin idinkuma koobna kuwa laamiga ku yaalla intaa ka cabanaya waxaan ku tala jiraa insha allahu haddii halkaa tago inaan albaab walba idiin garaaco inaan miiska idiin garaaco in waxa aan ilaahay iigu kii soo dhiibo aanay meel dhexe ku baayiq inaan idinla imaado baan anigu idinku ballan qaadaya